فرح أضوكم محطفا حقيقي سؤالها كان ويديسي بل انت أنا كجوابين أنا اسكت ضيو وأنا أقود بيو ومضي للصومالية دان كذا شيء إن أنا أقود بيو سلام والنبي آدم كبريت شيء أرور أريد يصير مات يسوون أرجوايو سلام ككلته ملقيه هذه الأوي بل سأل أوهون أنا أورك كويسته سلام يوجد كذا هو يديو إرماني مركاكي أنا كتشوغن كنت جاءت معان سلام واي أرداغا سلام واي أرداغا قرتدي أروريسيو وديالك دحيسو لغو آي السماء سلامتا وانت قدها ايه انت ديباد دبا عنو درايو ايان وحن راعينيا مصائبك أمد الصوماليات صدحية 10 سنة مصنبيه فرح بدنايا وقدم بيه هايستا دعو عن إلهي كريتشين ايو إساقا غفور الرحيمة إساقا ايا داقدالي إساقا ايا أود رنطاء الدون كالي إلهي سبحانه وتعالى بل إنو إلهي أمدينا كسارو دباتي اي كجرتو لكن حدنا إلهي إبريبويري بل ساعد لها إفاديسان وحان أمد الصوماليات كو قبادينيا وان كو براروجينيا مر لوادي مر صدحادنا أن جعالها هنا نشيغو إنا يكاقل قشان دباتي اي كجران تا وعين وحكا لك بحي كرين أي كغبحي كران دقال إيو حلقا مديسان وأي أمد أقشو حرنما ديدا لدوتسي haddii haddaba aan usoo noqdo su-aasha aad i weydiisay ama su-aalaha kan xiriirka ah waxa aan ka bilaabayaa fankayguna u ka bilaabmay iskuulka secondary-ga banaadir markii aan ku jiray waxaan bilaabay inaan sameeyo riwaayado yaryar kooban riwaayadaha waxa laga dhigi jiray iskuulkii aan ku jiray banaadir waxaan xasuusnahay 71 iyo 72 iyo qoliyihii naga horeeyay markaa foonfoorada ka baxayay riwaayadii aan ku sii sagooteynay qaar kamida inaan lahaa waxa nasiib wanaagii ahaa in aan mahadnaq celinaya macallinkayagii markaa macallimiintayada madaxda u ahaa oo ahaa directorka iskuulka Cabdulcasiis Taqarre wuxuu ahaa nin mu'allifa oo Soomaaliyeed ana macallimiintii Soomaaliyeed waxbarashada dalka ka soo geystay gacanta weyn Cabdulcasiis Taqarre wuxuu ahaa nin fanaana ama uu yahay nin fanaana isagoo macallin ah waxaanu sameeyay oo kamid ah heesiisii ilkaheeda dhuuxa ah dhabankeeda curubta ah sunnayaha bildhalatiyo sidii qaansan lagu dhigay muwaago dhalaalayba ma dhibic seer mooyda maxalay ubax dhasho dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo la dhacayo qosolba tilmaamaha caynkaas heeska Axmed Cali Cigaalo qaado ayaa heesiisi kamid ahaa iyo heeskii ahaa yan laga badin ciyaaraha gobolada waxa kale oo kamid ahaa raad abeeso riwaayadii ahayd murti fara badan buu macallinkaygu lahaa balse waxyaabaha aad ku hiranayso inaad sheegto weeye sabab u ahaa in markaa fikirka suugaanta aan si wanaagsan ugu soo jeesto waxa kaloo ardayda aan iskuuladka ahaynahay in qarad ninkii sameeyay qoraxda aroortii ana markaa tacliinta iyo waxbarashada ka sakow waxaanu galnay caalam suugaaneed oo aan ku cabirayno waxa aan aaminsanahay iyo ummadda dareenkeeda haddaba barashadii ugu horeysay oo aanu isbaranno ninkan dalka xukunkiisa faraha qadaad ama faraha adag ku haysta Maxamed Siyaad Barre waxay ahayd sanadkii 1971 waqtiga waxa ardayda secondaryyaasha ku jirta ama iskuulada sare ku jirta leeyli hagalan oo la nagu xareeyay ceel jaalle dhammaan secondaryada xamar oo dhan markaanu banaadir maanaha markii la nagu xareeyay meesha sidaad u aragtayba mooy faaraxo waa meel kulul oo xeeb ah runtiina tababarkii ayaa la noo bilaabay orod iyo arday yaryarna waanu ahayn xaqiiqdii marka
واحد مودا كديدي أي سمينين مركا معلمين تيدو إنه يوصل درين جورنال هذا إيو روايتها وما دام أن أي يقترين إن الله خبرة حق روايتها إن ليدي أن وحكسن سماء مركا رواية يريرو بأن أرضي كسوتشي إنه أنا عند رواية واوين أي وقت جالسين شرني حديثان كي هذا مركي أيامي لأنه حقيقي أيو نوي منك ضلك هايستيافوينه خد بديه الصاد كنت هقانا واحد مدينه ضدك كتبير الحوصة كلبا وحا أسليه ويدريميا وعادوني كيسا مركا waxa la sameeyay ruwaadi roox aan leeyahay in runtii sheekadaadiisa wanaagsan ma wada xasuusto waqtiguna iguma wada sameeyo balse markay dhamaatay waxa uu caado yeeshay in kolba qolada barnaamijka markaa sameynaysa uu horiimaad oo uu yiraahdeen adeejaalayaal waa ku maadsantiina barnaamijkiina xaqiiqdu waxa weeye dalkeenu wuxuu u baahan dhalinyaro fara badan oo cadeel markaa dhalinyaradaasoo qabanaysa ama ku dhaqaaqaysa midnimo iyo maskax bislaatay oo anti wadaag waxaad moodaa beerlaxawsiga markuu sameynayay inaanu isa salaanay waxay markii ugu horreysay aanu isa salaano waxay ugu dhan xasuusnaan adeejaale waa tahay abwaan baa tahay waa tahay nin mufakir ah oo gabaya laakiin hadda gabayadaadu iyo ku soo noqon gacan oo si xasuusnahay marka aan taaka gudbo gabayadayda iyo ruwaadahaygu waxay u badnaayeen nolosha iyo cabiraadda dabeecadda ay leedahay quruxda iyo abuurta farshaxan ee rabbaaniga ah ee ilaahay adduunka ku qurxiyay waxaan isku dayaa intii karaankayga ah bal inaan si wanaagsan u tilmaamo kolba waxa aan arko iyo waxa uu dareemo mu'allif walo oo Soomaaliyeedna kama duwana ee dareenkiisa inuu ka hadlo marka 73kii ayaa marka aan soo banbaxay riwaayadaha waaweyn waxaanan aan weli secondary marka dabiicadiisii ku jira aan soo bandhigay riwaayadii ahayd in la jacayl isma ay karaan riwaayada oo lagu dhigay gobolada dalka intooda badan ayaan filayaa iyo xamarna ka bilaabantay maantii waxay ahayd riwaayada kaliya oo aan islaahay malaha wasaaradii wakaaladii iyo hay'adda dawladeed kuma shaqo lahayn riwaayada in la jacayl isma ay karaan waqtigii aan sameeyay fanaaniinta Soomaaliyeed wax yar baanu iska naqin waxaan xasuusnahay maalin aan tagay Allahu naxariisto ninkii markaa tiyaatarka haystay Maxamed Ciise Ganay oo aan is'ili aanu arday oo dharkii ardaynimada sita faylkii riwaayadan wata Maxamed u tago bal u sheegay in riwaayadan maadaama aanu arkay riwaayada inayna dhigi karin markaa aan ardaydayadii aanu arkay markaa in la iigu dhiibo waa bari marka jibadii fankuna garo oo way ihaysay jiba kale oo wadaniyado aan islaha ninka wadaniga wax walba laga qabsanayo oo laga qaadanayo wixii uu ku fikrana way ihaysay balse wuxuu ahaa xafiiskaasi markaan aroortii ku kalahay xafiiskii ugu horeeyay ee aan dan ka yeesho ee aanu macallin fadhiin wuxuu ku fadhiyay Maxamed Allahu naxariiste markaa waxa weeye Maxamed Ciise Ganay oo tiyaatarka xamar haystay kursigii dabacda sana ee wareeganayay miis balaadan oo faylal badan ay ku rasaysan yihiin ayaa hortiisa teedsana waxana kala oo yii laba telefoon oo ah mid cas iyo mid cad astaghfirullah mid cad iyo mid madow marka telefoon labadan kamid ayuu haystay isagoo hadlaya ayaa soo galay gacanta ayuu signaalay igu bixiyay sidoo xilli fadhiiso oo kale dhowr kursi oo waaweyn oo halka ka soo jeeda balse waxaan xidhanahay shaarkii caddaa secondary-ga iyo surwaalkii balcadka ahaa ee cawlna calaamadii yareeda casayda afweyn oo yidhi halkaa ku xidhana waxay iigu lifaaqan tahay shaarka jeebadiisa sare soo galay fadhiista xafiiskii wuxuu iigu yidhi Allahu naxariistay Maxamed
ii waran reerihii ka waran sidii danina garanayo oo kale malaha wuxuu qaatay qof uu garanayo xaafadaha uu yaqaan mid ka mid ah ka soo booqday balse markii aanu dhowr telefoon dhamaystay buu yiri maxaa ku darna waxaan u sheegay Maxamed wixii anigu aan rabay oo ahaa in riwaayada indho jacayl isma eegi karaan anoo ka tirsan markaa secondary-ga Banaadir aan rabo in riwaayada laga dhigo tiyaatarka oo ay waxigala masalan hobolada Waaberi haddii aad fahamtay markaan u sheegay Maxamed arrintii jawaabtiina aan ka sugayo ayaa wuxuu yiri soomo ogeed 20 mu'allif oo fanaaniinta Soomaaliyeed ah oo Waaberi inay dawladda mushaar kaga qaataan kaliya mu'allifnimo waxaan idhi waa laga yaabaa wuxuu yiri soomo ogeed in riwaayadahoogii hore sidii loo soo cusboonaysiin lahaa iyo kuwa ay dhigayaan cusub sidii loo socodsiin lahaa aan ku hawlanahay jadwalkoodii iyo maaragtay isku dabaridkoodii waxaan taas adaa maareeyay oo fadhiya waxaan ku oran lahaa iskuulkaaga oo bax sidii wax cadaysan ma garanayo wax uu yeerinay laakiin jibada fanka kullaba arrin looga baahnaa isaga ma yahay ama halkii baan ka baxay waxaan ku yiri waxaan ilaahay ka baryayaa in riwaayada lafteeda bishanaynu ku jirna dabayaaqadeeda tiyaatarkan laftiisa laga dhigo tii alla noqotay bisha dabayaaqadeediina waxaanu ka dhignay tiyaatarkii iyadoo aan ku mahadinayo dhammaanba dhalinyaradii Soomaaliyeed ee sida wanaagsan igu hawl galay in ay ii suurtageliyaan inaan riwaayada indho jacayl isma eegi karaan dhigo kadib waxaad weydiisay maxaa ku dhacay fankaagii Axmedow riwaayada kadib run ahaantii markaan shaqada bilaabay waxaan ka bilaabay tuulada Waama dalxiiska Kismaayo waxa Kismaayo igala shaqaynayay kooxdii Restless Stars ee madaalayaasha kooxda iyo anigu waxaan hawl weyn u galnay sidii hotel Waama uu noqon lahaa hotel weyn oo adduunka ama Soomaaliya intaba sumcad leh marka gobolka Kismaayo oo dhan iyo Waamaba dhowrkii sano aanu joognay waxaan rajaynayaa in waqti wanaagsan oo aan wixii fariin ama fanaan ahaan naga soo hagaagay kaalinta aan ummadda u hayno inaan u gudbinay balse fankaygu wuu ka xidhxidhnaa marka laga soo bilaabo riwaayada indho jacayl isma eegi karaan ilaa aad moodaba imikadan in ummaddu wax dambe ay iga aragto taana waxa ugu wacnaa waad og tahay sida wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay'ad kasta oo maanta dalka Soomaaliya ka dhisan inaan qofna u xor ahayn ama shaqadiisii ama fikradiisii ama oraahdiisii ama ficilkiisii taasina waxa weeye xukunkan dictatoriga la dagaalmayno marka masiibo ka duwan kuwa ummadda Soomaaliyeed ku dhacay kuma dhicin fankayga waxaan xasuusnaa 47kii markii ugu horeysay oo aan iska hornimaad aniga markaa iyo aaraadayda baan u jeedaa markii ugu horeysay oo aan iska hornimaad aniga iyo rejiimkani waxay ahayd 47kii markii uu yimi madaxweynihii dalka Ruushka Badgorny dalka Soomaaliya waxay noogu yimaadeen tuulada Waama ee dalxiiska galabta oo kale ayay soo degeen labada qolo ee Soomaalida iyo Ruushku aad bay u fara badnaayeen waxay ku soo degeen hotelkii weynaa aanu ka shaqaynay dalxiiska waanu sii ogeyn inay imanayaan barnaamij baa loo sii diyaariyay maaweelo ah barnaamijka maaweelada ah waxa soo diyaariyay madaxdii gobolka Kismaayo ee waqtiga habeennimadii markii la soo gaadhay aniga waxa la ii sheegay inaan noqonayo narratorka ama ninka programka socodsiinaya marka garo kooxdaydii ama kooxdan ka tirsanaa Waamo oo ah madaalayaasha aadna aanu isku jecelnahay dhawarkayga ayay markaa aan mikrofoonada taaganahay iyaguna ay ka tumayaan muusikii
waxaad moodaa ina siyaad barre iyo badgoorn iyo waftigay wateen halkaasoo kale ayay soo fadhiyaan barnaamijkii baa socda waxaana kasoo qaybgalaya orientationadii iyo balaayikajinigii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo wixii gruubadii guloodayaashii iyo xaafad heble iyo farjanna iyo faanoola iyo shaqaalaha iyo waxaasaa kasoo qaybgalaya habeen aada u buuq badan buu habeenku balse anugu programka wax kale kuma lahayn waxaan ku lahaa sheegida iyo narrationka waqti haddaba aan bartanka barnaamijkaa kaga jiro ayaa waxa la ii weydiiyey Morgan ayaa soo kacay oo ahaa markaa bodyguardkii Maxamed Siyaad Barre wuxuu weydiiyey waxay odayaashu kaa doonayaan Axmedow inaad qaado heeskii ahaa Khadra runtii heeskaa Khadra oo aan sameeyey bilowgii sanadka 74 waxa jiray kuma qaban ummadda idaacad kamay dhageysan laakiin waxaad moodaa hees jacayl u eg ama jacayl abo ahaa waxaana u qaadi jiray markaa ummadda gobolka degan habeenada xafladaha aan iskugu nimaad ee aan maaweelinayo ummadayda marka waan yaabay halka ay ka soo maqleen maadaama aanay hore iga maqal iyo waxa barnaamijkan u kacaamaysan iyaga si gacanka ku sheegaan ay u soo dhaxgeliyeen heeskaygan balse dareen kale ay haddana igalo waxaan idhi okay qaadayna heeskii heesku wuxuu ahaa inkastoo aanan dayminka muusikii ku tumayn waqtigan xaadirkaadi wuxuu ahaa maytida aakhiro ma soo noqoto malagana mididiisu ma afbeesho ifkan murugadiisuna ma idlaato mahadhada kalgacalkuna waa meertee Khadraay milkada xabaaluhu ma hungowdo maangaab ma saanqaado doqon micidu dheertiyo malow milila casho kama daalo masqaniyadiisuna mudday kugu maqnaataa xididada dhex maaxda maalay cad noqota lafta malax ku saydhaa jiirkana madow iyo midab kale u yeeshaa milkiisuna dilaaca waa lamida kalgacalkuna Khadraay murtidii abwaanada midhihii hadraawiyo heesaha la soo maray ee dunida maantiyo jacayl lagu micneeyay qaysmariye maansada waa lagama maarmaan mahmahda waayeel malmaha aad nooshee meeday murtidii meeday mooyi meeladkiisii mooyi sayid maxamed caashaqo miyuu weligii soo maray muftiyada qur-aankiiyo culimadu ma sheegeen jacayl inkastuu marigu dhacay muuqiisa man arag mana ogi halkuu dego iyo wuxuu ku mudan yahay mithaalkiisa yaa garan maqashaye se ma ogtahay marohdii qabyowdee loo waayay mudaciyo inay tahay masuubadu tala murugtay caadkeed waa mas'arada adduunkii waa qorax madoobaad dayaxo min degayo dhulka meeriskiisii muuqa laga hadheeyo mililco isheedii aragtida ka maagto maangab indheer garab muramaha ku didiyo maansada ninkeedii doqoni ay masuugtee maaday murtidii maaday mooyi meeladkiisii mooyi heesku siduu kugu dhandhamayba markii aan qaaday waqtigii ay xafladdu dhammaatay ee la kala tegay waqti qolyihii nabad sugidda la odhan jiray gaari halkaa ayay ugu sii diyaarsadeen waqti afweyne uu ku maqanyay iyo gruubkii uu watay hurdageyntii badgoorni anna aan u leexday restaurantka inaan xabad faanta ah ka cabo restaurantka markaa faaruqa anoo markaa kursigii counterka saa usoo fadhiistay faantadiina ay hor taallo ayaa waxaa ii soo galay wasiirkaygii dalxiiska markaa oo ah ninka la yidhaha maxamed cumar jees markuu soo galay ayuu waliyaa waxaan qaad ku yidhi waxaan maxaad u qaad samaysa deegaro oo cabdiqays iyo hadraawina markaa way xidhnaayeen heeskana magacoogii bay ku dhex arkeen anuuse ma qabo wax dhibaato ah in heesku huwan yahay mana qabo isaguna mar haddii laga soo codsaday oo cidii doontabaha soo codsatay aniga anoon programka anuu iigu jirin la ii weydiistay anaan qaaday kollaba dee xaqaygu ma lahayn siduu ii weydiiyey inuu ii weydiiyo waxaanad garanaysaa mas-uuliyad xumada dhammaantood ay wada leeyihiin
oo aan ku baranay 13 sano annagoo isagii saysana oo yani sidii wax wasaaradoodan loo baabiinay heeskan sidii wax yani adduunka roogmaday oo ii hortaagan yahay oo dhowr qof oo shaqaalihiin ay noo soo galeen ayaa waxa ii yimi nin kabtana oo Axmed Warsamo la yiraahdo ahaa qolihii ilaalinayay Maxamed Siyaad Barre wuxuu waxa ku doonaya waliyan odayaasha u tagay waa iyagii oo dhano aan farka maqnayn waa Maxamed Siyaad Barre ninka la yiraahdo waxa weeye in Cali Samatar waxa weeye jaamac yar weerax baa ku jira waxaad moodaa inayna idaba ka maqnayn waxa ahayn dhowr iyo 10 qof oo maaragtay wixii golaha dhexe ku sheegayeen golaha dhexe markaa muslimay waxa la yiraahdaa wixii golaha sare ku sheegayeen iyo qoliyada wasiirada markaan ku magacaabay markaan weeyni ayaa wuxuu yiri soo fadhiistay markaa in Cali Samatar buu xagga u durkiyo dhexdoodii baaban soo galaad moodaa si ahay markaa wuxuu sheekada iga bilaabay أدي وعوي مبدئيا ويقودسي ضد عن ضدنا مرق عن ضدنا وعن قارنا حقيقة قارنا وعن لنا يعني مسكحدو وعي وفكريسو فكر كيدو يعني سياسة دي ضايقة مركا أنيقو محمد سيادان أنا من سنة وليان كتشرو إن أبتحي إلى طاي يعني ويل صومالي صوبر بارحية الطاي مؤلف الطاي منك عنه مسكحيسو أي أبس لعطي سياسة ضلك يو مبتعنتي وذاك بس قوليو كتشرو محمد علي سمتر كتشرو هبل انتو وحبو يتري وحبو يري أيها وحي آمسيه إن أطهي إن من راحسن مركا لبلا من أو أوليه يعني واقع عندي مركا وحولي إن وحن دالة دوبة ولي أنه عامسين وأوقتي أنه وحن قبا محمد جيدان مركا هذا يسير السوق وعاد أوليه دنبلا أوليه إنه ارتضتك كلا سعره مركا هلكا أيو حضلكي إنه قبل أبني وحنا لو وريقي إن كان علي سمتر ليلة ويري ان هاسكي سوو اسلا كدود ادمودن انو سي wanaagsan soo xafiday wuxuu yiri en masqaniyadii suna muday kugu maqnaataa xididada dhexmaaxda maalay cad noqotaa lafta malax ku sayda jiirkana madow iyo midab kala u yeesha miikiisuna dilaaca walla midab kala gacalkuna khadraay waa kuwa maskaasi ayuu igu yiri iyo meeytida aakhiro ma soo noqoto malagana mididiisu ma afbeesho ifkan murugadiisuna ma idlaata maxdada kala gacalkuna waa meertee khadraay wuxuu yiri hadana malagaas waa kuma en boqon ciidu dheertiyo malow milil casho kama daash kuma aad u jeeda waxaan iri en hortaan ku oran maayo en boqon ciidu dheertiyo malow milil casho kama daalo halkaad ku wadaan ku oran maayo hadaad leedahay Maxamed Siyaad baa u jeeda aanu uma jeeda hadaad imika ku leedahay waa kan ku horfadhiye ku dheh balse waxyaabana sheegaya meeytida aakhiro ma soo noqoto abahay uu dhinta soo noqon maayo of course malagana mididiis ma afbeesho halka wad leeyiri ama malaga wadka maalin walba accident iyo dhimasho iyo cudur waa loo dhintaa adu dood aynkaas ayaanu galnay ووليه حتى ماركتين محمد عبد الله حسن او اها نينكيسيا اها يعني نينكي دراويش هوغاميني iyo عبد القيس هدراوي oo ah aan laba nin oo kacanka ka soo horjeeda umadeena kala eriyay wax aynkaas maxaad yani meel u soo wada dhigtay oo admaan soo soo wadbartay markaan waxaan ku jawaabay kii dhintay iyo kan nool kii kacaana iyo ka kacaandiida kii wadani ahaa iyo kan weligii wadan dhamin saddexdooduba waa saddex mu'allif أنا وحنا سكترني أنا محل أبو راحي سو كوريا وأنا كوهال قبصدي وأنا عادة إليهن نمك جوايا هبين كاسي وحها هبين سلم بلس وحا نوبل عمي مركا لو بي هوستو دسكهراتي يجاي سوجي دجال رفنا وأنا كي مركا فارحوا لي وحدي لحية الضباطن كي
haddii aad weydiiso gabayga la igu xidhay run ahaantii gabayga waxay igu horeysay markii Ruubaan oo ku qadeynaya yimaadeen laba nin oo markaa nabad sugidda ka tirsan ay yiraahdeen anoo qadeynaya oo ku baahanay markaad dhamaysato hoos noogu imo aan ugu imaade markaan ugu imi ay gaarigoogi igu riteen meel yar weligeed aan filaw haystay ama aqal dad yani caadi ay galaan inuu haystay oo xamar ku taala ama ku taala marka laga tago daartan baarlamaanka oo meesha jilic godka jilic nin walaal Soomaaliyeed uu garanaya laakiin waxaad moodaa waqtiga aanu xabsiyada iyo waxana inuu sameeyo waxana Soomaaliyeed ruuxantii loo qoon farxo marka waxaan weligeed haddaan xitaa gaari ku hormaro haystay guri dad caadi galaan misalkaasi ila tageen murankii markaa noo bilaabmay labadii xitaa iska khadra iyo heesa kale aan leeyahay riwaayadeen jacayl iyo waxyaabo badan bay weydiin buug markaan u wada akademiga oo gorgortankiisa gudiga Soomaaliga iyo qoliya aan ka wada hadlaynay iyo arrin socotay oo ahayd in aanu wareego akademiga dhaqanka iyo hidaha oo wasaaradda dalxiiska ka soo wareego aan imaado wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare marka lixdii galabnimo malaha sidaan dhowr saacadood markaan wada hadlaynay ayayna yaro dhawaan xoolowa oo aad arkaysa yani goortumii qiimidiyo xawaa yara nafaqadu inay dhawaan u yihiin ayaa saacadiisa soo waagay wuxuu yiri wixii imika ka dambeeyay jaalle waad xidhantahay xabsigeygii markaan kaaga warramo iyo waxyaabaha aan kula kulmay ومركا ugu horeysay horta waxaan ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Xamar sanadkii 1977 sida u dhamaana waan ku jiray xabsiga waxaana xukuntay maxkamadda la yiraahdo badbaadada dalka ee uu ninka Maxamed Siyaad Barre oo dalka ka samaystay sida aad ogtahayna xukunka de guriga lagu soo sameeyay nin walba waxa lagu xukumayo waxa lagu haysteen waxay ahayd gabay runtiina gabaygaasaan kugu sheegay malahayn maxkamaddu se waxay ugu xukuntay ama maxkamad ku sheeg waxay ugu xukuntay 4 sano iyo bad iyo 10,000 oo ganaax waxaan maalinta la wada saaray maxkamadda ilaa 6 nin ayaanu ahayn oo lagu haystay maaragtay aan wax kale lagu haysan walba wada hadashay iyo waad kanaysay iyo hebel baad soo eegtay iyo hebel baad caydaa waxaan malaynayaa xarigii ugu yaraa ka 3 sano aboo ahaa waxaanad arkaysaa cadaalad darradu halka ay gaadhsiisan tahay balse marka aad xabsiga aragto ayaad garanaysaa rejiimkani waxyaabaha uu geystay intuu dilibdaayo inta aan dhiman noolayna waxaad ugu tagaysaa qaran 7 sano ama 9 sano ama 12 sanadood ifkaba arag oo banaanka u bixin waxa marka xabsiyada dalka waan ka shaqeynay sanadka qoliyaha xabsiyada ku shaqeystaan maxaabiista marka xafiisyadooda ayaan ka shaqeynay waxaana marka aan xogaal u ahay in ay xidhnaayeen tiro ka badan 10,000 oo ruux oo Soomaaliyeed marka la isku geeyay xabsiyada dalka ay ku xidhnaayeen xabsiga Xamar daaminka aan ugu yarnay waxa ku soo heenayay xawaalay haddana been sheegin 1500 2,000 qiyaas ah haddii ugu yaraato 1,200 buu ahaa inta habeenkii u soo heenaysay marka la isku daro xabsiga dhexe iyo kabiyamunda ee ah marka ka dadka aan wali la xukumin ee rumaankii ay ku jiraan runtii waad marwada dilaacaysaa marka aad aragto dhibaatada dadka haysata iyo nolosha ay ku nool yihiin iyo hadduu qofku cadaalad ku xidhan yahay is qancin karaa ama uu ku qancin karaa laakiin dad yani mid walba marka lagaaga sheekayo wuxuu ku xidhan yahay asleedahay war dadka soo xidhay sida u fikrayaan yani ilaa xadka cadaalad darradu gaadhay aan ma qiyaasi karo waxaan kaga sheekay sheekayro aan mar qoray xabsiga gudihiisa oo la yiraahdo muraayada cadaaladda waxa kaloo haddii ilaahay yiraahdo aan ku soo qori doona oo laga helayaa ay ku qoran tahay marka uu soo baxo kitaaban ka qoray noloshayda barkeed oo la yiraahdo noloshaydii nasiibka darmeed marka
sanadka aan xidhnaa wixii gaadhay iyo wixii wax aan ummadda Soomaaliyeed gaadhin horta inay gaadhin ilaahayna waxaan ugu mahadinayaa kasoo saarida oo naga soo saaray anaga iyo intii badneed ku jirnay dadka Soomaaliyeed imika ku jirana waxaan ku gobaadinaya calool adayg iyo raganimo waayo tiiraanyada xabsigu waxba ma keento waxaan waa wax qorna taariikh baynu maraynaa taariikh madow baynu maraynaa haddaba markii xabsigan ka soo baxayay markaan kuugu noqdo waxay ahayd 87 bilowgiisii bishii January ayaa la naga soo saaray markaa xabsiga xamar iyadoo la rabo in xabad la noogu bedelo xarigeenu ku jirnay waxa la nagu soo qaaday gawaarida la nagu soo qaadayna waxa ahayd noocan isjiidka ee otonta duwaha la yiraahdo waxaanu ahayn qiyaastii ilaa 6 gaari baanu markaa ahayn waxaana la nagay intayadii xabsiga Laantabuur waa laba qaybood markaa qayb waa qaybta adag ay u bixiyeen iyagu daryeelka laakiin qamta iyo inkaarta iyo dhibaatada waa qaybta ragga lagu xiniyeysiibo lagu carbdalaqeeyo lagu tunto waa qaybta maskaxda qofka lagu bedelo waa qaybta aanu qofku hawada xitaa arki karin ee maqsiyad oo kaliya oo aanu qofna la hadli karin si isagu iskula sheekaysto markuu sanad halka ku jiro maskaxda iyo indhaha iyo qalbiga iyo iimaanka soo beelo laakiin iimaan been maayana iimaan bay ka soo qaadayaan wayna ka soo qaadeen ninkii raga ee geed adayga ee geedsanayna runaantii uu ka soo qaaday marka anaga qaybta la nagay qaybta sokabay ahayd qaybta kalena maalin baynu ka sheekaysanay dhibaatada xabsiga laakiin sheekadii noo socotay baan ka sheekaynay iyo waxyaabihii aan la soo kulanay markii haddaba Laantabuur lana keenay bil baanu ahayn maxaabiis ahayna niman halka lagu tababaro oo kow laba layda yani waa waxyaabaha aan qaadan karin qof maxbuusa oo dharkii maxaabiista xidan oo dharkii cadcad ku jira oo intadii xumayda xabsiga cunaya oo haddana la rabo inuu dal u dagaalamo oo kow laba waliba la leeyahay waa ayaan darweey in ilaa xadka umadi gaadho waxa ka sii darnaa maalintii la naga soo saaray aroor hore 4 aroornimo ayaa inay yaro kabtanayntu oo koofiyad xasiintu dhexda qabsaday jaallayal xabad baad ku bedelaysan xadhigiina oo nidin ku bedelaysan abaal baan ku qabanaysa dalkaana daafacaysan dalkaanu daafacnay ragay dalkeena daafacaan loo soo saaray waxa qosol lahaa in 7 gaari 8 gaari istiido tanta duwayaala inta la nagu qaaday Laantabuur la naga keenay afkayga la soo dhaafiyay waa bari ayaa xamar kilometer 7 saala noo soo galiyay waa afkooye kilometer 7 marka xagga afkooye laga yimaad halka iyo jidkii warshadaha bila manaafacaadka dul mari jiray maragtay akademiga siyaado isku magacaabay militariga iyo xarunta militariga iyo waxa dhex mari jiray jidka dheer baanu qaadnay oo la naqaajiyay marka gaari walba xagiisa hore marka waxa weeye buurka hore iyo damanka dambe laba daways jiide garo oo qiyaasti laba askari oo yaryar koofiyad xasa ayaa xagga hore ka saaran xagga dambe buuriga dambana laba kale ayaa halkaas ugu soo fadhiya waxay haystaan qolyahan eekayga ama kayga waxa kaloo ay nagu amreen inaan qofna madaxa sare u qaadin qofna aanu kicin sida loo fadhiyo dharkii maxaabiista ma sidano mid askarina anagu ma sidano waxaanu dad maxaabiis ahaan jiray dharkooda caadiga qof bashaari surwaal yar iyo go iyo wadxan waa aroor hore ayaanu haysanaa qaar baa garkii ku baxa qaar baan 7 sano caruurahooga arag dad wada tabaalaysan baanu nahay marka waxa la rabaan ku sheegaya marka ay la naga rabay xamar la noo soo mariyay jidkaas dariiqa xaggaas la naga soo galiyay kilometer 7 ka kale ee gawaarida waqooyi iyo beledweyne iyo ka timaada ay ka soo gasho warshada la yaa baastadeeda ay cunin iyo xagga kale la naga soo galiyay jidka soo mara meesha la yiraahdo hotelka la yiraahdo Jungle Night Club ayaa la nagu soo riday marka yakhshid oo toostay xaafada yakhshid oo toostay
ayaa islaantii xaabada sidatay iyo islaantii shaqategaysay iyo odaygii toosay kii dameerkiisa saarnaa iyo kii aqalkiisa ka tegayay shaqa tegay dadkii oo soo baxbaxaya marka 6 subaxnimo ayaa la nagu soo beegay gawaaridu taayirka ayir bay rogaysaa ama qunyar bay rogayaan waxa sawirka la rabaa marka waxa weeye waqtigii dagaalka uu maaragtay geeska ka balbaliyay ama ka horiyay afweyne bartimihiisa ama dabayaqadiisa lagu jiray bay ahayd marka wuxuu rabaa in uu ummadda u sawiro inanu anagu nahay qolyo lagu soo qabqabtay dagaalka balada eega wala fiirsada yani cuqubada la kala gelayo marka garoo gawaari sidaasan ka iskugu wada haysa oo taayirka rogaysa oo mid walba 4 askari xagga hore iyo xagga dambe ka saaran yihiin iyagu taagan yihiin dad fadhiya oo yani la haysto qoryaha sida loo dul hayana la arkayo qofka arkaa abdal qiyaaso muxuu u qaadanaya wuxuu u qaadanaya dad dagaalkii lagu soo qabtay maadaama dagaal baa socda la leeyahay dad baan soo qabqabanay la leeyahay intaas waa maxaraan maanta keenin la leeyahay sawirkiisu ma anagana la nagu sameeyay marka waa ayaan daro waa wax yani aanan qiyaasi karin sida aanu dareemayna laga yaabo inaad u dareemiso adiga oo Soomaaliya magaalada xamar gudaheega in horta aad noqoto nin dagaal lagu soo qaftay oo cadow ama ummad cadow ah atihiin oo leeyahay cadawaatiin laga soo qaftay in laga dhigo wana hafriyad oo hafar dad la hafriyo adigina meel ka haddana sida ay tahay waxa lagu wataa in dagaal gasho marka gabadhaad garanayso halka maraysa adeerkaaga halka socda saaxiibkaaga halka maraya oo laamida isku soo tubay inuu daawado amxaara dagaal lagu soo qabtay balse amxaara maahee waragii Soomaaliyeed ee xabsiga ku jiray oo xabsigii ay ku jireen inta loo qoonsaday la rabo in dagaal xaq darro ah lagu soo dilo marka waxa dhacay in sida xamar oo dhan bandhig baanu ileenahay sala noo soo mariyo kadibna waxa la noo qaaday magaalada Leydha Baydhabo markaanu afkooyo marayno roobkii nagu bilaabay wuxuu nagu daayay ilaa beledweyne ilaa Baydhabo hadii aan been sheegin roobkaasi si xun buu noo hayay saaka oo kale maanaan qureecan maanta oo kale maanaan qadayn wali dhexdaanu ku sii jirnay wanu eedaadaynay balanbalkaasaanu ku tagnay goor casar gaaban ah oo cadceedu libdayso magaalada Leydha Baydhabo waa hambalyadii hoyga sirta muusiga Fanjire لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقت أن جودها مرينو أي ما صلاتنا الصبح ذي ضيلتي وحليه مرنا دلنك جيدها عبد كمد أما ذي دونك أوبر واقع مركادير كدقيدا تحمر يسكيمها layda kugu dhacaysiyo dhirtooda udgoona oo wax dalaaliyo darab subaxma weeyde dafaruurta midhaha leh shinidii dhammaamisaba dhabuqu macaana aniga sadaayaha kaga dherg lahaa qurux daadato xasuus leh waa daraaray la soco hadba dhamal hadweyniyo halkaan dhinaca saarana waa dhufaysay la qodo taasi waxay ka dhigan tahay waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulkayaga u hoydo doobadii hargeysiyo dubatiya nugaaliye ilaa dheegi waa may taxan tahay dhibaatada waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulkayaga u hoydo dhiitacabka leebkiyo gunta qorigu way wehel dhanka kalena maansada bal inay dhimbiilow halka looga soo dhacay Soomaali dhugataan dayalsiga u diidoon dhaliisheeda hoos iyo dhaawaceeda halista farta ugu dhaweeyoon dhiirigelinta heesaha dhawaqa ugu baashe intay dhaystu dihin tahay dhagahay ammaane taasi waa ma dhaqatada taasi waa ma dheregtada taasi waa ma dhigatada taasi waa ma dhooyada ii dheerarun meeshan ka dhaqaati leeyahay goorma la dhuuxaa hadal dhaay leeyahay
goormaa nin dhiidhiyey dagaqaba la doodaa goormaa la dhuuntaa goormaa la dhaqan yahay goormaa la dhaafaa laga dhaga adeegaa oo ay dhunkaaliyo xabad dhacaysa noqotaa goormaa dhibaatada deeq lagu xasuustaa waa habeenadii lagu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyagoo hoydo dhuda waxay dhudi xalay tidhi maray dhaan xaweyskii ka furaysay dhoomaha dheeha geeldhaha oo ka jira dhibaatada ama garab ku dhaashada dhisadeeda subaga ama dhaada weylaha sacadiinla weeraxa ama kaba dhaqaaqdee ha ku dhaadan xoolo dhulka iyagu lahaan jiray marti dhowrsan baa timi gubadkay ku dhalatoo dhuumashaa habeenadan beesha lagu dhex maraya dharka iyagu ma sheegana dhawqiyo afgarashadu maaha gabiyo laalayd ubsashaasa ugu dhiman dhudi nimanka waaweyn soo dhawaato waa kali duganaysa baalaha welisa dharaasti dhaayaha ugu taalla iyadoo ka dheer dumar dhexda gacan la hibatoo dhabanada mid saartee yaa gacanta naga roga degnay baan su-aalo waxaanay dhanaan iyo dhaymidkaydun haystaan waxay tidhi dhib mooye deef ma laha duunyadu dhaqashana cidlow degay mooyi dhaystii xoolaha wax dhufsaday ayaamahan gubanee qofkii dhalay iba dhiiqa loo diid laga waa dhalaalkii caanihii la dhami jiray diilka iyagu ma buuxsamo haddii tooda dhexsiya dhammi la isku soo daro hadday dhaxantii jiilaal soo dhacdaya ma nabadbaa waxaanay dhaqaaliyo ha ka baqanin nororida hanamoodin dhoostii nimankii wax dhici jiray waxaa deriga saartiyo maxaa duuni haysa waxay tidhi dherow baay miyaa laba dardaaraa sidii faqash dhulka u yimi ka dhab maaha dayradu waa sadaqan ay leedahay dhawiq iyo hubsiinada iyo dhagaadaygue hadday tidhi bal soo dhaaf ma dhantihiin hadraawoha lasii dhandhamiye waayahe maxaa dhiman waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo waxa taarka soo dhacay dhamacowna leeyahay dhaqdhaqaaqii cadowgaan dhaayaha ku hayna waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo daraarayna soo maray shantoo dhan la saariyo ku ekayd dhibaatadu inta dhigar la geystiyo waxa dhacay ma maqashay daraarayna soo maray labadii isbugataba mid kaloo dhex taagan meeshu oday waa dhirnimadii ka dhaqaaqa odhan jiray inta badanna waa dhaxal taariikhdu dhigaysa daraarayna soo maray ma dhisnaa la odhan jiray dawladani mid dhaantiyo dhaqdhaqaaq la jecel yahay la soo dhaafiyo waa nabad sheekadii ahayd deeg ulle laguma soo dhaco waa dharaaraya abloonka dhammaan agtaydiyo dhacda waayaheedaba nin kastoo dhegaystaa dhabanada la haystee dhowdhowdii ayidhi uma dhicin cadurooli sawtan dhabaqday xaaji habaqloo isdaarsaday sawtani nin dhoofoo dhayal kaga maqnaayo nin ilaadiskeedii dhegxumadu damqaysiyo dhowaan xoolowgii shalay dhandhamada sadmoodiyo dhadig iyo carruurtan ku bawooday dhallaankiyo dhallintii safkaratee dhawaqoodu simii sawtan dhiirane ugub sawtani dhafoorbadan soo dhigatay yaasiin sawtani ka dheer nabad sawtani u dhow halis allahu sahlo dhulba waxa la kiihee ku dhashee ku dhaato dhulba waxa la kiihee ku dhaqmee ilaasho dhulba waxa la ruuxii dhisaya la jecelya dhulba waxa la ruuxii dhaxalkiisa yeesho dhulba waxa la kiihee dhimashada ku aamina aniguna dhulkaygo waxaan dhaxanta jiilaal dudubada ayniidiga dada saaran buuraha dadaabtoo iskanaya waxaan bacad daraareed sida bahalda baxshada intaa aan dhufay iyo dirtaada waxsanaya waa gula daliside allow aanan horteed dhiman iyadoon dhamays noqon intay dhibibidee hore intay dhididee kale intay dhaqan xumaatiyo intay dhacantay maandeer midna kuma dhadhabaye yay dhaliili doonaan hadday dhammaado caawana ma dhurwa ay haystaan ku bedeli dhurwaha kale salaamaad mise aniga dhiilxood igamaba dhammaado marka dhahar la waayaba dhiglaa soo bedeli beesha iyaduna dhaantada dhaqan bay uleedahay allo aanu kusoo dhicin kaloo dhabqinaya madurtaa ragdhaato camba dhoorkan loo fidhay isku dhoobe dhexgali amuuraha isku dhaash dheri iyo qoosh weligaa dab iyo dhagax isku soo dhaweeyo dhigta udub la doondondadaho xariiriyo ismalaha kundii cala dhaqta ugu shaqaashiye waa sidee dhimbiilow inay kala dhaqaaqday ku dhawaatay caawa dhowrka jiliba loo shiray dhubuq horaan beri dhamanada la haystee dhamaco golfaalee dhulkii waxaan la tegino dhaqankeenu seeyahay
soo dhawaay luushu maana dhuglaawa dhalintii hargeysiya ma dhaayahayga dhamaco barbaarti waa su'aal xitaale inta dhaawaceen qabo midna aniga oon dhayn miyaan hadal ku dhaafaa jawaabtu waa may wad ma santiin